markaanu tagna airportka naga qaadaan nin waliba shaqadiisu joojiyaa fagaarayaal quruxoodan baa noo samaysaan aad iyo aad baa noo qadarisaan haddaa naga waayeen nagamaha xumaanaya nacayba waa naga tamaree noo dulqaata cudurdaarkaa kadib waxay noo ballan haddaynu kulmiyanahay wixii uu dhigayay xeerka xisbigeedu waxay ii doorateen dee aniga say la tahay war bal ra'yigaaga ku soco meel hagsanigee wax naga saar laakiin qaadan kari maayo waan ku doortay taladayda yeel dee imisaan taladooda yeela waxaa kaloon weliba qurbajoogga ka sii codsanaya iyo kuwa gudahaba caloodaygu waa waxa lagula ag joogo dadka ku ag jooga hadday arrintaa ku idhahaan sax baatee ku soco waad soconaysaa laakiin haddii intii aad isku xisbiga ahayd inaad isku codka ahayd inaad isku wadaadeen ku idhaahdaan midba habeenkii kusoo gacanta ku yar qabto bini aadmu baa tahay moogtahay xagga adeegaysa waa hebel miyaa dee haddana xagga adeegaysa wallaahi waa hebel haddana alla oo heblaayana soo taalkaa joogtay ina waxaasay tahay dee taa ku socon kari maayo dad wixii aynu ku heshiinay sharcigu ha sarreeyo go'aanka ha la qaato dowladda ha la wanaajiyo inaynu taa ka wada midoonaa wanaagsan wiiga soo socda ama saddexda wiiga soo socda kolley waa markii dowladdii la magacaabayo ninkii siduu doonaya waayo waxbaa niyad jabi qof baa kula wanaagsan oo tirada waxa buu qabanayaa ku aanad ka firin haddii gacanta ku dhacdo kulamaan aqoon adiga ma yihi igala yaab waxa hagaajiyo baan isleeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa degmo waliba waxay isleedahay aduun baa lagu dayacay aduun baa dadaal badan aduun baa Soomaaliya u dadaalaya ma war hayso ta kale ee dhinac kale ka xigta waxa jiro halka quraheela la isku ogaan karaa ee marka la isxaal ogaado ee midulka kala baahidiisa iyo wuxuu ku wanaagsan yahay ogaado ka bacdina la is aamino oo wax la yeelan karo dadana iyadoo midaysan yahay la dhaqaaq kara waa xisbiga uu marka waa raacsanahay xisbiga la adkeeyo dhamaanteena arrintaa waynu wada ogolahay waanu ku dadaalayna waa dhab xisbiyadu imika inta badan qaab xisbinimo adag ma shaqeeyaan dhaqankeena ka hor yimaada duruufaheena ka hor yimaada social dhaqankeena bulshada ayaa xisbinimada diidan oo waayo Soomaalidu inta badan kala dambeynta iyo xeerka iyo wanci dhaqanaha wanci nin baan intuu har cad ku dilaya gardaro waa loo soo gurmanaya wax la leeyahay xirsi wax lagu dhameeyo diinta islaamka ee madax ka jiran la raaci maayo waa dambiile xabsi dheeraad xaq laga raaci maayo ka qurbajoog uu soo qaylaya sheekh masaajid tukiya dee waa arinta waa nin hagsan deelinka hal hagaajiyo inantu way soo qaylinaysaa oday uu soo qaylinaya haddana wax la leeyahay cadaalad ha la ilaaliyo marka dhaqankeena iyo cadaalad iska hor yimaadaan waana la baran doonaa inaan laga maarmayn kala dambeyn dowladeed xisbi qoys shaqo dadka aniga ila daadaya inta ugu dhow wali maskaxdooda waxa ka guuxaya tii afweyne oo dawladba way nacab yihiin gaariga bartanka dariiqada taawraya waan soo halgamay oo ceel baxay markaa waayo xanuunkii dictatoriyada ku sii yaa ku dhigan waana wata imika ina saamaysa ee qof walaalka fadhiba dhibaato sharci darre ay ku haysato haddii la iswaraysto qof waliba sharci u baahay markaad u yartay aqalkaaga baa lagu haystaa markaad u yartay haddii kala mid baa intuu gaaray ka jeedaan cid ku soo qabato aan helido dhibaato weyn wada qabna sharci darrada marka waxay baantay inuu taariikh ka feejiyaan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxay noo balana oo ku midaysanahay in ilaahay laga yaabo diinta lagu dhaqmo waayo qofka hadii ilaahay ka yaabin ee aan diinta islaamka ku dhaqmo baadigu iska noqonaya barnaamijka inaynu dalkeena horumarkiisa ka wada shaqeyno mar saddexaadka inaynu kulmiya ahaan ka wada hawlgalno sidaynu inaguna u midoobi lahayn ee xooggeena isku gelin lahayn dalkeena horumarin lahayn waxaan ku soo gabagabeynayaa inantii halkan ka hadashay ina Ismaan Ismaaciil Cali waxay tiri waxa lagu sheegay go'aan adag yaa laga waayay hadda waxaan sheegay kulmiyo dhamme gudaheed dibad ummadda Soomaaliya ku hadashay ajir waxa ka iibiyeen waxaanu dooranaynaa nin malaha superman dadka ka yarsareeya oo wax walba si ahayd ka dhigaya horta taas waa igu dulmiyo expectation ka badan waa jira
raggaan su'aal askari qaab badan baa halka fadhiya oo nin sidaa waxa laga sheegay maahayna dadku ma kamid ah waxaan leeyahay inantii waa hagaaga indhahan isku qabanayaado caloolada gaana lahayn waan isku dayaa go'aanka qaadag baan qaadanayaa hadhow tun arina waa horena wardeena kisoo xareeya intiina go'aankan maanta qaadka raali gelmaayo waa dhab xisbiga ka raali gelaya mar labaad waxaynu ku inoo ballana xisbigii gudaha dibadda aan ka dhisno aan isu dul qaadano talabada wanaagsan aan isku dhiirino qofka aan ku qaldamay suu doonayay iga waayowna iyo dul qaado baritaan ay doontahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh